keliya faallo su-aal ma qabin sababtoo ah waxaa faahfaahiyey oo wax walba naga dhaadhacsiiyey wasiirka oo qaatay barnaamijkan. Faaladeedu waxay noqonaysaa dakhliga wasiirka xabaarka hor wuxuu sheegay 11 bilyan in Soomaaliya oo dhan ay soo saarto. Anu waxaan ku jiraa sektorka beeraha. Waxaan dhihi karo maanta hoos way u dhigaan dakhliga waxa kow ka ah badeecada dalka soo galaysa. Tusaale ahaan oo kale anu waxaan ahay beeraley. Waxaan hadda gacanta ku hayaa oo manage gareeyaa 3 beerood. 3 beerood daawadooda seedka aan beerayo kulli waxaan ka dalabnaa dalka dibadiisa oo Nairobi baan ka keenaa. Sababtan saa u sameynayno waxa weeye yani tusaale ahaan oo kale markaan seedka dirsan ilaa 400 500 dollar ba ku baxda ilaa keenitaankiisa. Waa lacag dalka looga baahnaa oo hadii wadada sax la soo marin lahaa kale ama quality control uu jiri lahaa dalag noo yaalay ama daawada noo taalay dalka lacag dalka dib ugu noqon lahayd bay ahaan lahayd. Anu taas waxaan dhihi karaa dakhli ahaan waa qayb muhiim ah oo aad caqabad u leh. Waxaa jira dalagyo sida basasha oo kale iyo matqaana qudaarta kala duwan oo dalka dibadiisa nooga imaata. Waa lacag baxda weeye. Waxaana keeniyo sababayaan isleeyahay sida cabaarka hor sheego kale. Beeraleydu waxay qaataan seedka dalka la keeno. Waxaa keenta hay'ad baa keenta. Hay'adu markay keenaan dukaamada loo qaybiyo. Dukaamada loo qaybiyo waxay ka sii iibinayaan oo matqaana dib ugu celinayaan waa beeraleydii. Kiilo basala ama nuskiilada basasha oo seedka ah waa $23. $23 marka maanta ka bixisid waxa laga yaabaa soo bixitaankeeda inay 5 bilood tahay laakiin aad sugtid ilaa 7 bilood. wax sababay waxa weeye seedkii baa raagsiima leh ma daaweysna hadii la ku idmahayo mirta soo baxdaana waxay noqonaysaa mir daciif oo yar. taas markaa waxay sababaysaa in qofkii uu banaanka u dirsado ama Yemen u dirsado basal waaweyn quality leh kana lacag badan kana lacag yar markii banaanka laga diro sababtoo ah kiishka banaanka nooga imaanaya $16 buu ku yimaadaa. Ani markaan soo saaro kiishka basasha wuxuu igu soo baxayaa $35 buu ii noqonayaan. Marka qofka suuqa jooga qofka yani iibsadaha ama ganacsadaha inuu banaanka u dirsado xaq buu leeyahay sababtoo waxa aan soo saarayo dhibaato igu noqonaysayo ma qaadan karo. Hadii aan qofka beeraleydana xaq buu leeyahay wixii ka galay $35 ma dhama. Wax laga yaabo $2 ama $3 inuu ka faa'iideeyo. Marka dakhligeena laftigiisa dhinacaasna aad baa caqabad uga jira yani waa fariin aan gudbinayo in la fiiriyana aan rabno. Waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. ورنت ومد علينا يا وزير علي درسيgaas qiimaha badan oo runtii na siiyay la xiriira dhaqaalaha Soomaaliya iyo xaaladaha faraha badan ee ku xeeran. laba su'aalood aan rabay inaan aan weydiiyo doctorka wasiirka mid koowaad lacagaha farjigolka hadalkiisa ugu dambeysay iyo institutionska gacanta ku haya runtii waa institutions muhiim ah dad aamin oo culimo badan ay gacanta ku hayaan kaalin weyn runtii ugu jira ummadda Soomaaliyeed marka la eego xilliyada adag ee ay soo martay ilaa haddana shaqo adag u haya. laakiin dhinaca kale marka la fiiriyo wasiir lacagta firjuwalka marka laga soo tago inay dadka ayagu asad haystaan oo ay مثلا asadkoodu u gooyo waxa wareegayo lacaga iyo wax ka badanba maxaa damaanad dawli ah oo مثلا jira oo dadku isku haleyn karaan dadka lacag dhiganayaan wax xeerar ah wax damaanad ah wax ayaga laga dhigo oo lacaga taas waa rabay su'aashaas inaad bal noo faahfaahiso. arinta labaad Soomaaliya runtii dhaqaalaheeda marka laga hadlayo ila dhaqaale oo potential ay leedahay oo marka laga hadlayo مثلا badda sida hadaayo tilmaamaysa aad u dheer 3300 kilomitir ah khayraad badan ku jiro haddana shidaal badan lagu sheegay khayraadka beeraha iyo wabiyada maaragtay biyaha ka buuxa khayraadka xoolaha ilaa iyo 60 milyan xoolo gaaraya ayay dalku leeyahay. haddana waxaa soo khayraad oo jira waxaana la ku tiriyaa inaan dawladaha adduunka ugu faqirsananahay isla markaasna khayraadkeennii si khaldan looga faa'iideysto oo badiyo kale illegal fishery uu ka jiro
maxaan ku yiraahdaa khayraadka beeraha laga yaabo wabiyadii iyo in ciid buuxisay oo cid ka faa'iideysanaysa aysan jirin xoolaheena ay dayacan yihiin oo xirfadlayaad fiican aysan haysan maamul fiican aysan haysan qaab fiican oo loo dhaqa aysan haysan suuqgeyn fiican aysan haysan waxaas oo dhan runtii waa cillado jira oo dhaqaalaheena in saameyn ku leh waxaa tilmaantay in badan dakhliga iyo dhaqaalaha saameynta ugu xooga badan waxyaalaha ku yeelanaya caqabadaha hortaagan waxaa ka mid ah dowladnimada ama siyaasadda oo xasiloona aysan jirin waana factor jiro oo runtii wax badan ay ku xiran yihiin laakiin haddana ma isleedahay bulshada Soomaaliyeed waxa la ummad walba madaxdeeday leeyihiin macnaha madaxdu ayay ka soo dhex baxaan marka cilada annaga laftigeena Soomaali ahaan waa leenahay madaxdaas dhibka badan oo aan waxba noo reebayn oo shirkad ka dhigtay maamulkii iyo dowladnimadii inay madax noo noqdaan shacabka laftigiisaan aan shacab nool ahayn oo guud ahaan waxaad arkaysaa xuquuqda ay leeyihiin iyo maxaan ku yiraahdaa inay dowladda la xisaabtamaan kii liita inay wax u sheegaan yani waxba shacabku nolol ma leh Puntland ama Soomaaliya hadda aragto ninka xaakimka waxa leeyahay ha dhamaystirto teeramkiisa maxaa teeram 5 sano nin wadanka haysta wadankiiba baabaayay marka dhibkaas dadka laftigiisa bal kaalinta bulshada iyo kaalinta dawladda bal ayadana bal waxun ka iftiimi labada su'aalood rabaad iyo aad baan kugu mahadcelinay jazakallahu khayr bismillahir rahmaanir rahiim aad u maasan yahay Dr. Ali iyo ma fikraan ma mahadcelinayna inay barnaamijkan noo soo aboolaan oo dadka muhiimka elite-ka ah marka waa mahadcelinayna anigoo su'aasheeda hal qodob weeye mudane wasiir dawladii Cabdiwali tartankii darajo fiican ba gaadhay ka bacdina waxa lagu amaamariyay wasiirka waxbarashada ina ka noqotid aqoonta baratayna ay tahay economic iyo sida dalka dhaqaalaha loo kicinayo marka arintaasi maxay caqabad ku keeni kartaa ama marka dawladda ay joogtay ama dawlad kasta oo jirta haddii qofku wuxuu bartay iyo aqoontiisa miisaanka oo qofka loo magacaabayo maxay institutionada dawladda u keeni karaan ka soo qaado kale qof dhakhtar ah haddii loo magacaabo inuu garsoorka madax ka noqdo ama qof economiga loo magacaabo inuu waxbarasho kama noqdo maxay institutionada Soomaaliyeed dhibaato u keeni karaan xagga horumarka intaas su'aasheeda amaasanta su'aal muhiim ah rabaa wasiirka inaan weydiiyo maadaama aan ku ogahay khalfiya diiniya inuu leeyahay oo background islaami uu leeyahay wasiir baa maalin dhowt meel ka hadlayay wuxuu public private sector ka codsaday inay ku soo wareejiyaan zakada oo zakada ay siiyaan runtii de ma xuma laakiin the way uu dhigay baan anigu saluugay oo zakadana siiya marka waxaan rabay wasiirka inaan weydiiyo anigu wadan Malaysia la yiraahdo wax ku soo bartay wadanka waxa ka jira nidaam zakada lagu maamulo oo iyagu ay institutions zakada maamula oo waxyaalo badan de asnaafta loogu qabto ama haday noqon lahayd wadooyin tuulooyinka dadka fuqarada degan yihiin in wadooyin loogu dhiso dadka fuqarada in looga bixiyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo waxyaalaha kale businesseska dadka fuqarada ay leeyihiin in lagu hormariyo marka waxaan rabaa wasiirka bal contextkeena isagoo ku saleynaya I don't think dawlad in hadda xaaladda lagu jiro zaka lagu aamini karo personally laakiinse balse aan zakada uga faa'iideysan karnaa oo private sector ku aad buu u weyn yahay marka in bal asdul taagtidna warjin laha السلام عليكم ورحمة الله waxaan rabaa inaan marka hore salaamo may fikraan iyo wasiir cali iyo caawa marti ku ah iyo dadka soo qayb galay anuu su'aalahaygu waa laba kooban horta mushkilada Soomaaliya haysta dawaa bukootay marka dawada wax lagu daweeyaa u baahan inaan helo adduunka wadan shaafta ku jooga ma jiro Soomaaliya jidha dhaqaalihiisu kuma filla amnigiisu kuma filla wuxuu ku filayaa ma jiro dawladda Soomaaliya ka jirta saasita waaba kibiraaba meelaha markaa ka hadalna madaxdeena iyo baalka arintan ugu daran waxa weeye wasiirku xusho waxyaabo ugu daran oo aan faa'iidana lahayn soo dhowrsada waxa kamid ah qaadka iyo shirkiga jira waxa kaga jira madaxda la rabay inay trade imbalance Soomaaliya saxaan oo importigan badan ee banaan ka imaanay exportigooda bato si dhaqaaluhu ma profit noqoto
sidee lagu keeni kara Kenya ama ka gadana qaadkabe qaadka dadkeena oo dhan baa cunee wax u dhigma wixii at least aan u geyn karo si looga shaqeyn karaa ko tan labaad kalluunka sektorka cali si fiican uga hadlaa kalluunka saabsan iyo blue economy aad loogu guuray hadda Soomaaliya xeeb dheer bay leedahay kalluumaystada Soomaalida pressure-ka ugu weyn waxa ku haya illegal fishing maraakiib waaweyn oo vessels waaweyn wata oo shaqaagi wata burburinay qaybtooda waxa la siiyaa license waxana siiyo wasaaradaha dawlad goboleedyada iyo tan dhexe lacag baa laga qaataa ninka kalluumaystaha miskiinka xeebta jooga xogaa la soo baxaa mid baa buug la fadhiya cashuur la daba jooga hadduu soo saaro xogaa yar dul soo baxa lacagna wuxuu ku qaadanayaa inuu mid shariifaya uu license siiyo wuxuu qaadanayaa soogeyn aqoon ahaan uu soogaan karinba haddana waa waxa soo baxday in dawlad lagu wareejiyo Soomaaliya iyada kalluunka mid Turkiga iyo hawlo kale sidee loo heli karaa hoggaan bal at least waxa ugu yar oo concept dhaqaalaha ka fahmi kara marka noqoto maareynta miisaaniyadda hadda inaga Puntland dadka caqligooda la caayay ayaa loo waxa la 18% oo kororta anu dhaqaalayahan ma dhaqaalaha ma baran laakiin inaha yar yar oo aan ka aqoon waxa weey ila dakhli markay kordhaan oo dakhli badan soo baxo kharashka la kordhaa kharashka waa la keenay 18% haday korortay 10 iskuul dawladda meel la wareegto MCH-da la yiri hay'adii ka bixul cad baa loo waayay maarayso soo ku dhacay horta wax marka wasiir waxa rabtay horta miisaaniyad korortaa waase dadka harta la fahamsiyo haday korortay maxay la korortaa wassalaamu calaykum lacagaha digitalka ah ee sida cryptocurrency iyo forex lacagahaasi waxaan filayaa marka anu kula dhaqaalayahan ma yihiin markaan si wax u eegay inay noqon doonto lacagta mustaqbalka loo guuri doono una baahan in ay systemka dawliga ee heer federaal iyo heer maamul goboleed ay ka fikiraan sidii ay xeerar ugu soo in lahaayeen qawaaniin dalka ah una maalgashan lahaayeen wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo Soomaaliya maanta iyo Afrikaba waxa ugu badan ay ku nool yihiin waa lacagaha IMF iyo World Bank iyo donoriska ay bixiyaan maanta haddii loo wada yeero wasiirada maaliyadda Afrika oo dhan oo la dhaho wax lacag niima hayno maanta laga bilaabo ku tashta ay soo tagaan guryahooda ku soo laabtaan wasiir adoo maantay ah wasiirka maaliyadda markaa Soomaaliya ama madaxweynahaba maxaa markaad soo noqotid talaaba oo sameyn lahayd oo qaadi lahayd haddaad su'aashaas ka galgalatid in case ka galgalatidna maxaa la gudboon wasiirada soo noqday iyo madaxda wadamadooda ku soo noqday talaabo noocee inay qaadaan baa la gudboon aad baan waasanta sida la socotaan shaqo abuurku wuxuu ku xiran yahay dhaqaalaha dalka waxa meesha fadhiya boqolkiiba hadda 90 waa dhalinyaradii waxa moodaa maalmahan waliba bisha hadda ugu dambeysay in ay runtii aad uga niyad jabeen dalkoodii oo ay badankooda xirxiran yihiin una jahaysan yihiin inay badda isku biimeeyaan oo hadda qayb kamid ah la soo sheegayo in la waayay bil ka hor dhowr qofna la sheegay haddaba inay dhinteen marka waxyaalaha xalka ana la sheegayo inuu yahay sida hadda wasiirku ka hadlayay political instability iyo security haddaan labadaa la helina xalku inuu adkaan doono marka waxaan weydiin lahaa wasiir tiihan inuu ku jira maxaa xal u ah sidee se xilli dhow looga bixi karaa waynu la soconayo hadda siyaasadii waxa la moodaaba in laga niyad jabay haddaan siyaasad xasiloon la helina dee dhaqaaluhu ma fariisanayo dhaqaaluhu hadduusan fariisana dee halkaasaynu joogaynaa marka tiihan intee ka bixi karnaa ma isleenahay waa mahadsantahay bismillahi raxmaani raxiim waa salaamaya madasha min fakaraan iyo wasiir cali arrinta dhaqaalaha horta wasiirku wuxuu aada uga hadlay waxay tahay institutionka laakiin anu waxaan qabaa aragti kaloo ah Soomaaliya problemyada ka jira waxa kamid ah shaqaalaha iyo technologiyada iyo qaabka productionka dadku la soo bixi lahaayeen hadda isbarbardhig haddeen sameeyno waxaan arkayay wadanka Norway waa wadanka labaad oo adduunka ugu xoogan oo dhoofiya kalluunka dadka ka shaqeeya oo Norwegianka kalluunka waa 11,000 oo qof dadka involvedka ku ah oo de kambaniyada ama si kale involved uga ah waa 5,000 oo kale 17,000 isku noqonayaan kulligood
adduunkana waxay kaga jiraan waddanka labaad China oo dekadad badan uun baa ka horeeya Soomaaliya haddaan fiirinana 400,000 oo qof oo yar tahay tiradu laakiin de 18 milyan oo Soomaalida markii la dhaho 400,000 way dhahay baa u shaqo tagta badaha Soomaaliya waxay soo saaraana ganacsiga guud maxaa la dhahaa GDP-ga guud oo waddanka wax soo saarka waa number aad u yar oo de maba garan karnaba hadda sayidkan fishery-gu wuxuu Soomaaliya ku contribute gareeyo dhaqaalihiisa taas waa taas marka su'aashan weydiinayo professorka waxay tahay dhaqaalaha Soomaaliya inta ugu badan hadda wuxuu ka soo baxaa waa populationka iyo xoolaha marka laga soo tago gadashada iyo waxaas mandaqadan hadda ku noolnahay Puntland ma leh magaalo weyn oo metropolitan city ah oo dadkii oo isugu yimaadeen koonfurta iyo waqooyiga waxaynu ku dhaamaan baa dhici karta inay leeyihiin laba magaalo oo waaweyn oo dad maaragtay dhaqaale xooggan soo saarta marka maxay tahay sababta dadka Puntland ama de magaalooyin yar been leenahay saan qiyaasayo Laascaanood Garowe Boosaaso Qardho magaalooyinkaasna magaalooyin maaragtay ku filan dhaqaale badan soo saari kara ma marka maxay tahay waxa sababaya in dadkan Puntland ay samaysan waayaan hal magaalo oo weyn oo maaragtay soo saaraan dhaqaale xoog leh Dr. Maxamed wasiirka waxay ahayd lacagaha virtualka waa runtiis anu waxaan ka hadlay shirkadaha gacanta ku hayaahi inay leeyihiin hanti ay ku bixin karaan horta wada lacagtan waa deyn shirkada loo dhiibtay aniga iyo adiga iskale maadaama deyn ay tahayna shirkada waxaa laga rabaa inay deynta hayso intaan ogahay marka sharci baa jira shirkadaha ay ku dhaqmaan oo ah waxa la isticmaali kara lacagtaas 30% way aniga markii ugu dambeysay in la bedelay ilaa la bedelan warkama hayo laakiin markaan ogaa lacagta depositka ay qabtaan waxay isticmaali karaan 30% oo kali ah 70% cash waa inay u hayaan practicalna waa igu dhacday oo hadda xusataan maalin waxaa jirtay 2012 sahalku naga istaagay waxaan ku samaynaynay upgrade subaxii buu soo kici waay meeshu ay inuu 6 soo kaco 10 buu soo kacay wixii dhacay waa la ogaa taariikh bay ahaayeen laakiin subaxii waxa dhacday dadku saf bay noo soo galeen lacagtii naga qaadanayaan Boosaaso saan lacagtii u waday inaan bixinayno duhurkii casarkii trade kala samaysmay oo lacagtii la soo celinayo maxay la dadka laftooda dib bahaysa lacagta ma hayn karaan ninku $70,000 ama $100,000 ganacsadaha ama $500,000 sometimes ma hayn karaba bangi uu ku aamini karo oo u dhiiban karana marka qaarkood ma jirin marka xataa waxay lacagta ugu dhiibtaan safety hadda korba waxa la nin ganacsada ah ayaa wuxuu rabaa inuu fasax qaato gaari wuxuu Rolls Royce ayuu lahaa marka meel u dhigu waay bangi buu tagay wuxuu ku yiri waxaan ka rabaa $5,000 inay siisid markaas collateral maxaad igu bixinaysaa soo gaari Rolls Royce ah gaariga baa laga qabtay furihii buu dhiibay wuxuu gaariga u haysta 5,000 fasax baan aadaya waa idin soo celinay waxa ku biirtay $50 $5,050 bay noqotay markuu soo noqday $5,050 buu bixiyay gaarigana waa qaatay ninkii marka kalerka wuxuu ka warniyo waa ka yaabay 5,000 miyaad u baahatay oo baahidii kugu qasay inaad Rolls Royce keentid kaasoo maya meel aan dhigan waayay buu yiri waxaan u arkay $50 inaan meel ku dhigi karo inta aan maqrahay marka lacagta haynteeda laftigeeda ayaa waxaan sahlanayn ah dhinaca marka su'aasha adiga weydiiso ah maxaa damaanaad ah baan ka hadlay anigu oo ah inay hayaan hanti ku filan oo ay ku bixin karaan lacagtaas laakiin waxa inta ku dartaa inay lacagta laftigeeda xoogeeda la hayo waana sidii ugu dambeysay waana rajaynayaa laakiin waxay ahayd inuu jiro xeer kale oo hadda bangiga dhexe wuxuu ku khasbay shirkadaha iyo bangiyada shirkadaha telefoonada oo digitalka lacagta digitalka sameeya inay lacag deposit dhigaan bangiga dhexe wuxuu kale ku khasbay bangiyadu inay dhigaan lacag deposit oo u dhiganta nisba kamida lacagaha ay hayaan already marka bangiga dhexe shirkad kasta lacag buu ka hayaa digitalka sana lacag buu ka hayaa marka iyada lafteeda waa guarantee kale oo tii hore lagu dari karo waxa la rabaa sida laftigeedana shirkadaha laftigeeda la audit gareeyo oo audit reportkooda ay daabacaan aysan qarinin oo audit reportka ay ka muuqato lacagaha ay hayaan depositka iyo siday tahay intaasaan kaga baxaya su'aasha hore arinta labaad oo ah arinta toorku ka hadlay waa runtiis وترك سجى سؤال شاكة جوابه وحويه كما تكونون يولى عليكم محكم مدحضاني
cirka ka soo dhici maayaan idinkay dhexdeenay ka imaanayaan innagaa marka dooranay maadaama aynu doornay ilaahay aanu barino marka ilaahay inuu noo hagaajiyo oo ay noqdaan kuwa aan ahayn kuwa aan ka ducaysanaynayo walaa tusallid calayna bidunuubina anagu diyaar baanu nahay inaan garab istaagno diyaar baanu nahay in la shaqayno puntland lacagta markii la joojinayo waad garanaysaan ama lacagta markii suuqa ka baxaysay wixii ka dhacay waad ogeydeen waxaa la rabaa dowladda laftigeedu inay ka faa'iidaysato aqoontaas bannaanka taalla oo wax lacaga aan looga rabin wax lacag aan looga rabinin hadday dadkeeda ka faa'iidaysan weydo hadda waxaa la yidhi iyada iskabtay marka inay noo hagaagtaan rajaynaynaa ilaahayna waa ka baryaynaa subxaana wa tacala inuu noo hagaajiyo wax ka weyn qardaawi sheekh qardaawi waxaa la yidhi sidee lagu heli karaa xukun wanaagsan wuxuu yidhi labaa lagu heli karaa in dadka fiican xukunka qabtaan ama dadka xukunka hayaa ay noo hagaagaan wuxuu yidhi waxaa noo sahlan hadda kuwa jooga inay noo hagaagaan marka iyaga aan u ducaynaba ilahay inuu noo hagaajiyo su-aasha saddexaad waxay ahayd qofka marka institutionka toorku iyo weydiiyey qofka institutioniska soomaaliya dhibka haysta waxaa ka mid ah qofka iyo xirfadiisu inaysan islahayn dabcan taas haddaani kama jawaabi karo maxaa yeelay nin baa qaraarka iska leh laakiin marar badan waxaa dhacda muxaasasa qabaliya baa wax lagu dhisaa xukunka muxaasasa qabaliya lagu dhisaa mithaal ahaan waxaa dhici kadha in doctor maxamed la yidhaahdo maadaama uu inaadeerka madaxweyne yahay ma noqon karo wasiirka maaliyadda oo kale islama heli karo marka muxaasasadaasa mar badan waxay keenaysaa in qofkii meeshii fiicnaan laysla raadiyo ninbaa hadda kor wuxuu waree dhahaya 4.5 ka qaata waa idinka yeelay laakiin qoys kasta miyaan qof fiican laga heli karin oo aqoon leh maxaa khasab ka dhigay qoys kasta qofka ugu liita in laga soo qaato marka iyadoo muxaasasada qabaligaa jirto haddana waa in laysu fiiriyaa khibradda qofka iyo meeshuu wax ka qaban karo muhim wey arrinta ku saabsan zakada anigu runtii su-aasha anigu ayaantii si kale aan fahmay inuu wasiirka xoogaa mithaal ahaan kaftanba hadalka ku jiray ma uu fahmin inuu leeyahay sakada ha nala siiyo wasiir daa'uud buu ahaa baan u malaynayaa ma ahayn laakiin wuxuu ka waday bal hana la tijaabiyo wuxuu ka hadlayey waxyaalaha dowladda lagu tijaabinayo marka wuxuu bal sakada xataa hana lagu tijaabiyo laakiin qolada saxaafaddaan u malaynayaa inay u rogeen xoogaa oo uga dhigay inuu sakada ha naloo dhiibo dowladda sakada in loo dhiibo anigu dhibaato uma arko zakadu sida nabigu sheegay sala allahu calayhi wasalam waxay leedahay cid laga qaada iyo cid laga bixiyo dadkuna waa bixiyaan waana institution dowladeed weeye sakadu ogaada institution dowladeed weeye maxaa yeelay dadka sakada wax laga siinayaa ka mid ah walcaamiliina calayha dadkii dowladda u dirsatay oo dowladda sakada u soo ururinayay baa waxaa laga mid dhigay inay ka mid yihiin dadka sakada wax ka qaadanaya oo wax looga jarayo soo ma ahayn ninkii marka nabiga u yimid oo ku yiri rasuulka ilaahayow hada lakum wa hada uhdiya ilaya sakadaa loo diray markaas xoogaa la soo siiyey neef baa loogu soo daray markuu soo noqdo wuxuu keenay sakadii iyo xoogaa fiican oo isaga la soo siiyey madaxdan waxay soo qaadanayaan oo kale muxuu yiri marka nabiga sallallahu alayhi wasallam hada Trump waxa lagu haysaa diyaaraddii muxuu yiri waxa iska leh Air Force ana ma qaadanayo Air Force ayaa iska leh dowladda Mareykanka ciidamada diqolada diyaaradaha iska leh iyaga qaadanaya maxay lama qaadan karo madaxweynayaal baa waxay xilka ku waayaan hadiyad yar oo loo soo dhibay saacad dahaba bay ku waayaan xilka marka wanabigu waa sheegay wuxuu yiri afala jalasa fi bayt ummik hatta yuhda lak guriga hooyada ma fariisatid bal hadiyadaha lagu keenay macnaheedu waxa weeye sakadu nidaam dowladeed weey haddii marka la helo dowladii lagu kalsoonaan lahaa aniga waa dadka qabaan ku jira inay ganacsatadu u dhiibayso dowladda ay diyaarutay maxaa yeelay waxa lagu qaban karaa aad u fara badan wa fi sabiilillaahi waxa soo gal kara waxbarashada waxa soo galaya caafimaadka waxa soo galaya amniga waxa soo galaya dhismaha dowladda waxa soo galaya jeedka haddii loo dhisay jidka in dalka wax loogu qabto waxa soo gali kara wax aad iyo aad u ballaaran marka awqaafta soo galaya dadkeena awqaaf maba yaqaanin ba adduunka awqaaf bal yaqaana oo milyan soo saarta marka anigu runtii fikrad ahaan maba diidaniba laakiin marka hore waa in la helaa cidi loo aamini lahaa oo lagu dhiibi lahaa ka bacdina likulli xaadithin xadiith arinta ku saabsan qaadka xal uma hayno waa la cunayaa qoysas baa ku nool xal buu u baahan yahay waa run sidaynu hadda u qaadanaynahay sustainable maaha
wax socon kara maaha saddex meelood meel dakhligeena soo gala in qaad lagu bixiyo subaxii warqad la daadinayo wax la aqbali kara maaha waa runta qaadka waynu la soconnaa xog idinkuma seegana cidda soo dejisa iyo cidda lacagta ka qaadata iyo lacagtaasi meeshay aado anigu waxaan isleeyahay waxaa jira cashuuraha waxa la excise tax waxa weeye adduunka waxaa loo isticmaalaa wixii la rabo in la yareeyo wadannada reer galbeedka waxay u isticmaalaan maalan waxay doonayaan baabuurta in la yareeyo maxay samaynayaan shidaalka cirka lagu dhajinaya hadda maraykanka haddii qof laba qof iyo ka badan haddaad tahay khadka firi waxaad mari karaa sariica baa lagu ogoliya khad sariica jira waxaa mari kara gaariga 2 qof iyo ka badan saaran tahay hal qof ma mari karo why because waxay rabaan in la soo raaco bullying bullying waa la isugu tagayaa dadka xaafadda hal gaaray soo wada kaxaysanayaan khadka sariica bay marayaan marka excise taxiga waxaa loogu talagalay waxaa rabta inaad joojiso khamrada oo kale baa ugu sarreysa adduunka iyo khamaarka baa ugu sarreeya labadaba waxaa la rabaa in la yareeyo oo la joojiyo marka waxaa la saarayaa 5% baa la saarayaa marka qaadka waxyaalaha lagu xallin karo lambar 1 waxaa ka mid ah qoysaska debadhantiga ku ah in loo abuuro alternative life ma joojin kartid gabar 9 cunug haysata qaadka jooji ma kula fahmayso maxay la miiska waa inay qada u saartaa marka waa inaa u samaysaa wax kale oo ka shaqaysan kadho waliba lacagtii ku shaqaysan lahaydna waa inaa siisaa ka bacdi waxyaalaha ku jirta waxaa ka mid ahaa in cashuurteeda cirka lagu shareero dakhliga ka soo galaahi in lagu qabto waynaga hadda ka hadlayna shirkadaha sameeya koobtaan iyo caagadaha waa in lagu khasbaa inay inay recycling ku sameeyaan marka xalkaasi ma noqon kara in la joojiyo qaadka maanta waxay u baahan tahay intaasoo istaraatiijiyada in loo maro ay ka mid tahay dadka in loo abuuro shaqo abuur ka bacdina in loo sameeyo bahalkii dambiga qaadka laynoo soo diraya waxaa kaaga daran qaadka waaga hore maaha waa qaad sumaysan waa qaad lagu khasbayo qofku inuu addicted ku noqdo haddana khamradii baa layna kuu soo daray khamro aan la gadan karin Ethiopia baa Soomaaliya waxaa lagu keenayaa peanuts waxaana loo soo dhibaya askarteena kontroolada joogta ayaa soo qaadaya arrinta kale oo ku saabsanayd arrinta kalluunka anigu Soomaaliya marka laga hadlayo waxaa la yiraahdaa waa dalalka ugu rajada badan Afrika xagga resource iska daa batroolka iska daa macaadinta sida wasiirku sheegayay 50 milyan oo xoolaa baa jooga Soomaaliya xeebtii baa joogta kalluunkaasaa jooga haddana sidaad sheegtay waxaa loo fasaxayaa shirkado adduunka mamnuuc ka ah iyo shabakado adduunka mamnuuc ka ah waxaana laga saarayaa ganacsatada waa arrin u baahan si saxa loo wada hadlo lagu noqdo waxna laga xaliyo su'aashii ahayd su'aal muhiim ah weeye IMF iyo World Bank lacagahay bixiyaan hadday joojiyaan maanta oo wasiirada la yiraahdo maaliyadda waxba idin ma hayno maxaa la samayn lahaa waxaa jira gabar Afrikaan ah ayaan buug bay qortay waxaa la yiraahdaa buugga magaciisa Dead Aid baa la yiraahdaa waxaa ka horeeyay nin la yiraahdo Michael Maren oo Soomaaliya ka shaqayn jiray ninkaas wuxuu qoray buug la yiraahdo The Road to Hell الطريق إلى الجحيم Soomaaliya ka qoray wuxuu ka hadlayay hay'adaha waddankeena imaanaya iyo waxa ay lacagta malaayiinta gelinayaan inaysan ahayn wax sustainable oo wax ka harayaan wuxuu weligiin ma maqasheen hal ceel oo UNICEF qoday oo maanta shaqaynaya maalintii ka tagaan buu istaagay magaalada imsa ceel baa ka qodan oo la qoday mid shaqeeya ma jiro baadiyaha soo fiiriya maxay yeelay ka bedeli maayaan bahalkii ma taqaanaa diinibadii ka bedelay marka hore waxa loogu talagalayaa one time use baa loogu talagalayaa marka wadana fara badan baa ka faa'iiday markay joojiyeen ku xirnaanta ay ku xirnaayeen daqdiga internationalka inagu waa u jilicsanna systemkana u jilicsan dawladdeena u jilicsan way adkaanaysaa inagu inaynu joojino USAID hal mar bay joojisay waxaa dhacay 400 oo kun oo shaqo laga waayay Soomaaliya wax ku dhow iyo Kenya iyo wadana fara badan oo Soomaalida badan ay ka shaqeynayeen marka dependency baan ku nahay ay dependency baa jira
marka waa la rabaa hadda siyaasiyiinteennu maaha maalinta inay baraarugaan maalinta la joojiyo inay baraarugaan maaha maanta la rabaa in la bilaabo inaynu ka maarmi karno dhaqaalahaas dibadda ka imaanaya waana hubaa long termka xal baa loo heli karaa aynu uga maarmi karno inagoo dakhligeenna iyo dhaqaalaheenna isticmaalayna waxaa jira haddaad la socotaan barnaamij la yidhaahdo man sayarbix milyoon ma waliba maqasheen oo su-aal la keenay wadannada adduunka ugu resource badan soomaaliya iyo sacuudiga iyo laba waddan oo kalea la keenay qofkii marka soomaaliya maba ku soo dhicinba wuxuu yidhi ma garanaya laba ha layga tiro saddex waddanoo khaliijka iyo soomaaliya inay ahayd baan u malanaya labaa la xadfay soomaaliya kuma jirto labadii la xadfay waxaan malay sacuudiga iyo maxaa isku soo haray adiga soomaaliya waddan kale isku soo haray waddankii kale u doortay halkaasu ku dhacay khayraad markay noqoto soomaaliya ka khayraad badan baa lay waddankana waa laga warhayaa kontomaadkii baa la helay shidaalka kontomaadki baa shidaal laga helay waxaa la ii sheegay halkaan meelihii maraykanku xayireen dhinacan u dhaxaysa cadduunka jirto oo jiriban iyo eel u dhaxaysa garaacad iyo eel u dhaxaysa la ii sheegayay islaan baa la waraystay islaan soomaaliyeed marka maraykanku markay ceelka qodeen waa xireen marka waxbay ku daadiyeen suniya xoolaha kaga dhintay marka waa la waraystay waxaa la maxaa dhacay waxay tiri mande sida reerika u timid riyaanba caafimaadin maraykankii bay kari weyday ma ogtahay ameerikadii bay kari weyday waxay tiri sida reerika u timid riya ma caafimaadin marka waxay garatay wixii ay sameeyeen baa xoole inay ku xanuunsadeen waddankan goormaa la helay siyaad barre waxaa loo fargareeyey waxaan 70% ku siinayna ma jirto ma yeelin inta ugu badan waa in nala siiyo waxaa lay adiga oo waxaan ku gaarsiinaynaa inaad peanuts ogolaato 10 sano kama soo wareegin marka waddan adduunka Soomaaliya lagu kala tegay oo la kala cayriyey marka waa run khayraadka waddankeena waa yaala laakiin dhibkana haysa waxa weeye khayraadkaas ilaahay nama tusin naagta maxay tiri gabadhii wala ninkaas hadduu rabo xaaska gabadhayda waa ka dhali lahaaye hagrashiya ku jirtay tiri khayraadka waa yaaliine sidii looga faa'iidaysan lahaa oo loo qaybsan lahaa oo si cadaalada loo wadaagi lahaa oo qof kastoo Soomaaliya meeshiisa isagoo jooga uu qaybtiisa heli lahaa oo cadaalad ay ku gaari lahayd kaliya u baahanta waxaan ku darayaa arrinta ku saabsan dhalinyarada tahriibkeeda iyo shaqo abuurka runtii aafa jirta wey tahriibku waa aafa jirta laakiin tahriibku waa xun yahay ma lagu daaweyn karaa may waa in la abuuraa asbaabihii dhalinyaradu waddankooda ku joogi lahaayeen anigu waxaan ku qanacsanahay dhalinyaradu hadday hoob rajo hadday hayaan hadday heli karaan ilihii dhaqaalaha qof bini aadana inuu waxay u bareereen hadda oo bad iyo cadaab iyo magafa ah oo aakhirkii reerkoodii u qarxiyo reerkii guri hadday lahaayeenba in lagu khasbo inay ka guuraan oo gadaan oo isaga ku soo daayaan qofna ma sameeyaan laakiin hopelessnesska iyo rajo xumada iyo musuqmaasuqa iyo mataqaana kali lahaanshaha iyo dowladnimada loo bedelay projects dhaqaale beyle muxuu yiri Soomaaliya waa mashruuc isagii waa mashruuc ila marwanka laftiisa la marwanka marka waddankeena khayraadkiisa waa inaan ka fikirna adduunka halkaana la imaana Maraykan iyo Ingiriis waddankan waxay u haystaan in khayraadka lagala soo baxo haddii layna qaxin karo sida Falastiin waa hore layna qaxin lahaa waa layna qaxin waay maxay la dadkeena dibadda aaday milyanis bay soo direen waa yaaban yihiin in la joojiyo la dabcay waa la joojin waay hadday awood u leeyihiin wallaahi baysan $1 la soo direen dibadda laga soo direen waana la istaajin doonaa waa ogaan doontaan lacagta dibadda ka imaanaysa marka waa inaa inta goor tahay dhalinyarada in la eedeeyo in iyaga eedda la saaro aniga ilama saxsana waxay la saxsan in dhalinyarada laga qaybgeliyo talada dowladda laga qaybgeliyo ganacsiyada laga qaybgeliyo aynu abuurno fikir qadiyadan wax looga qaban karo iyagana rajo loogu abuuri karo waddankan iyo qiimihiisa iyo awoodiisana lagu maamuli karo arrinta ku saabsan sektorka dhaqaalaha dalka iyo ku dhex jirkeena inaga arrintaas talay ahayd waa arrin fiican weeye dadkeena kalluumaysiga ku jiraahi waxaa jira hadda baxnaano may gargaara waa institution microfinance ah
World Bank waxay siiyeen 49 milyan qolo kale waxay ku dareen 60 milyan baa loo dhiib 60 milyan waxa loogu talagalay productive sectors inay geliyaan marka hore agriculture-ka iyo fishing-ka iyo waxa la yiri waxaad gelisaan iyo waxay ahayd iyo kalluumaysiga iyo beeraha iyo kii saddexaad muxuu ahaa iyo xoolaha livestock geliyaalay marka maxaa la rabay mataqaana waxa la rabay shirkadaha ku mashquulsan oo kamid ahaa beeraha inay association samaystaan iskaashato miyaa la yiraahdaa marka iyagu ay soo wada dalbadaan wax iyaga wada khusayceel hana loo qodo hana la siiyo mataqaana seedka hana loo soo gado hana la siiyo waxaas qof adduunka qof iska socdo beer yar oo 10 hektar leh waxa lama siinayo lacagta iyadoo la qaadan bay waxay khasbeen bangiyada in loo dhiibo oo marka microfinance shirkadaha yararka loo qaybiyo iyo bangiyada dalka ka jira bangiyadu lacagta 50% waa celiyeen wax qaataan la waayay hadda waxay ku dareen waxbarashada waxay ku soo dareen caafimaadka waxay ku soo dareen environmentiga waxay ku soo dareen mawaadiic fara badan haddii la helo institutions la sameeyo oo beeruhu samaystaan oo iskaashadu samaystaan oo jaamacaadku samaystaan lacag fara badan baa taala waliba 3% ay qaadanaysaa niman kale gargaara oo kharashkooda kaliya ay qaadanaysaa wax kale oo laga qaadanaya ma jiraan bangiyada marka la siiyay bay bangiyada waxay khasbeen inay 8 qaataan boqolkiiba ama 12 ka qaataan si ay riskiga ku jira ay u ka fargareeyaan laakiin haddii sida banka Puntland uu sheegayay lacagta inta iyagu la soo wareegaan ay yiraahdaan annagaas hal la bixiyo dadka hal la siiyo 2% hal la saarto anu waxaan qabaa dad fara badan baa lacagta soo gaaraysa haddii kale lacagtii dib baa loo celinaya marka institutionskaas kale microfinance-ga ahi wax badan bay ka soo kordhin karaan waxa la rabaa inaynu ka gudubno qof beer qodanaya oo subsistence farming waxa la yiraahdo oo nu gudubno scale aan wax ka dhoofin karno oo aynu wax ka abuuri karno inaan u gelina la rabaa su'aashii ahayd metropolitan area waa sax hadda koor baa anagu discussion ka sameeyay maalin magaalada rag badan oo siyaasiyiin iyo aqoon-yahan baa waxay ka hadlayeen waxay soo jeedeen war maxaan u weynay Puntland magaalo weyn u ah oo purchasing power-ka dadku uu bacna leeyahay oo waasic ah oo dad badan ku nool yahay dad badan baa waxay yiraahdeen sidaana fiican tuulo in loo kala noolaado ayaa wanaagsan maxaa looga baahan meel la isugu yimaado dadku ha faalano waliba qaab darrada inagu aanu noolay waa maxay reer walba markuu raba inuu meel dego muxuu samaynayaa laamigu meel ka qabsanaya soo ma laba xaafad maxay isu jiraan waacyo iyo xidda maxay isu jiraan waxba isu ma jiraan carba iyo hadda maxay isu jiraan meesha la yiraahdo iyo ceel daahir waxba isu ma jiraan waxay noqon karaan magaalo weyn bay noqon karaan qaabkan mentality-ga hadda aan u shaqaynayno intaan ku jirno way adkaanaysaa qaybna waxa iska leh qaabkii dawladihii hore u maareeyeen oo Soomaaliya mantiqadan waxa la oran jiray mantiqadii gaariwaaga la oran jiray baynama dawladda Hargeysa yaa dhisay hal guri kuma darin guriga madaxtooyada Soomaaliland guriga Morgan way taliyihii ciidamada gurigiisa waa inuu isagu leeyahay waa u maleynay shakhsiyan uu leeyahay hal guri kuma darin hal cusbitaal kuma darin hal iskool kuma darin waxa shaqaynaya in institution dalka laga dhisay waa xamar waxa la gadanayo hadda la xaraashaya waa dhulkii wasaaradda kalluumaysiga wasaaradda arrimaha dibadda bangiga dhexe ee wasaaradda deegaanada dawladdu waxay lahayd tawsanis oo dhul ah oo shaqaalaheeda loogu talagalay oo hay'adaheeda loogu talagalay oo cid walba loogu talagalay garowe meel dawladdu kulayd baa ku taalay ma jirin meesha ayaxa ma taqaan ayaxa meesha ay ahayd ayaa dalxiiska halka magaalada meesha looga baxo controlka guriga gaaban ma aragtay fool xun hadda isku dhacay iyo guddoonka waxbarashada ka jiray wax kalaba loogu mid wasaaradaha oo hadda la dhis marka mantiqadeena dabeecadaasi waa noo horeysay laakiin waxay ahayd maamuladu inay ka fakaraan in waxaana asal ah magaalo inay waasacdo ma la rabaa waa in dhulku raqiis haddaan dhulku raqiis ahayn maanta guri inaad ka dhista garowe maxay ku kalifaysaa booska 20 waa imisa $30,000 $24,000 ilaa $30,000 gurigana waxaa lagu dhisaa $70,000 ama $60,000 baa lagu dhisaa marka half of the money dhul baad ku gadanaysa waa inuu qofku 10,000 ku heli karaa booskaas oo kale waana inuu dhulku qof weyn dhul weyn qaataa qofku 30 iyo 40 inuu qaadan karo qofku marka number 1 waxaa ka ah xeerkaas waaba waxaa jiray xeer baa la soo saaray xeerka Excelka
excelka waxa weeye baabuurku intuu qaadi karo boosaaso waxa la waa in la dhigaa qaanuunka laga fuliyaa gaariga soo baxaya si uusan biriijyada u jabinin alaabta uu qaadayo waa inay u dhigantaa qaanuunka excelka wixii ka badana waa in laga qaada ganaax weligeed ma maqashay gaari la ganaaxayo waxay marayaan magaalada dhexdeeda biriijyadan tacbaanka iyagoo waxay marayaan aad moodid in cirka lagu tallaalay 3 jibaar buu wada intii loogu talagalay maalintii baa u dambaysa la soo saaray xeer kastoo la soo saarana waa sidaas maalinta la soo saaro la ansixiyo baa u dambaysa marka waa loo baahan yahay aniga aragtidayda in la helo magaalooyin waaweyn waxayse ku xiran tahay wax badan baa ka horeeya bal dadka bal dhalinyarada bal maamulka bal xeerarka bal nidaamka anigu waxaa isla intaa haddii wax laga qabto inta kale insha allahu way iska imaan doontaa dadkan waa dad islaam ah ilaahay dayici maayo subxaanahu wa tacaala waxbaa u hagaagi doona ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dalka noo hagaajiyo madaxdana noo hagaajiyo in dhallinyaradana noo hagaajiyo dalkeennana jeclaysiiyo nicmadiisa inaynu ka faa'iidaysanana uu nagu celiyo aad iyo aad baa u mahadsantahay